daacish ayaa maanta ciidamo ka tirsan Puntland qarax ku laysay waxaan idin wadaagi doonaa tirada ciidamada dhintay iyo habka markaasi miinadu ay kula qaraxday waxa kale aad maqli doontaan Puntland waxay sheegtay in deegaano horey kooxda daacish looga saaray ay mar kale kooxdu dib ugu laabatay isla markaana ay dib u qabsatay waxaan idin wadaagi doonaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee daacish iyo ciidamada Puntland dagaalada u dhaxeeya iyo waxa dhowrkii bariye ugu dambeysay buurahaasi ka dhacay guulaha dawladdu gaartay iyo sidoo kale meelaha ay kooxda daacish markaasi ku sugan tahay waxaan kaloo aan idin wadaagi doonaa barnaamijkan aad ku daawan doontaan saraakiil ka socota dawladda Soomaaliya ayaa diyaarad ay wateen Jubbaland u diiday inay dowlad ka degaan laakiin Ethiopia ayay ka degtay diyaaradaasi markii ay Jubbaland diiday inay deegaanadeeda ku degto goobta ay ka degeen iyo waxyaabaha ay doonayeen iyo sidoo kale arrimo kale oo xasaasi ah oo xaaladda Jubbaland iyo khilaafka dawladda federaalka u dhaxeeyana barnaamijka qaybtiisa dambe aad ku maqli doontaan waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto channelkeena subscribe saarto magacayguna waa Shuke Aadan Gurey waa 15 Oktoobar waxaan ku bilaabayaa Puntland wararka ka imaanaya buuraleyda caalmiskaad ee gobolka Bari waxay sheegayaan in 7 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ay ku geeriyoodeen 5 kalena uu dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay gaari ay saarnaayeen ama gaari ay wateen oo nooca dagaalka ay markaasi la qaraxday miino ama qarax miino oo ay kooxda daacish wada ku aastay qarax ayaa sida lagu soo waramayo ka dhashay miino nooca dhulka lagu aasa waxaana maanta barqanimadii uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Daroor Madoobe oo u dhaxeeya tuulooyinka Turmasaale iyo sidoo kale Dhaadaar oo buuraha caalmiskaad ee gobolka Bari qaraxa ayaa waantay waxa uu markaasi ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Puntland Maxamed Barre Shire uu sheegay in deegaano hor leh laga sifeeyay kooxda daacish ayna hadda dib ugu soo noqdeen deegaanadii horey looga sifeeyay qaybtood gudoomiyaha waxa uu xusay in kooxda argagixisada ee daacish ay ku milmeen dadka reer guuraaga ee degan buuraleyda caalmiskaad hadalka gudoomiyaha ayaa waxa laga dhansan karaa in daacish ay dadka deegaanka ay markaasi isku ekaysiiyeen isla markaana ay dadkaasi ku dhaxmilmeen isla markaana iyaga iyo dadka la kala garan la yahay dabcan hadii inta aan hawsha aan dib ugu laaban isku milanka dadka iyo sidoo kale daacish bal aan buuraha dib ugu laabano dadka dhintay ama ciidamadan dhintay waxay ahaayeen ciidamo Puntland gaar ahaan intooda ugu badan ka soo jeedaan gobolka Mudug waxay ahaayeen ciidamo howlgal la sameynayay dagaal ku jiray qarax ayaana lagu aasay markaasi miino ayayna ku dhinteen sida ka muuqata sawiradan dhammaan dhalinyaradan waxay ahaayeen kuwa maanta ku geeriyooday markaasi goobahaasi dagaaladu ay ka dhaceen dhamaantoodna waxaanu alla u weydiinaynaa inuu naxariisto Puntland dagaal bilaabmay sanadkii hore dhamaadkiisii oo ay la gashay daacish wali waa u socdaa dawladuna guul buuxdo oo dhameystiran wali kooxda kama gaarin laakiin jab weyn ayay kooxda u geysatay inta ugu badan buuraha waa laga sifeeyay kooxda dhammaan saldhigyadeedii ayaa gacanta lagu dhigay saanadeedii hubkeedii iyo sidoo kale rag fara badan ayaa kooxda laga dilay waxna gacanta looga dhigay laakiin daacish ma doonaysa in ay sidaasi ku faarajiso buuraha markaasi caalmiskaad iyo dhulkan buraleyda ee Puntland waxay doonaysaa intii karaankeeda ku dadaalaysa inay halkaasi sii joogto ku sugnaato ku dhuumaalaysato isla markaana ay jahwareeriso ciidamada iyo dawladda intii ay jahwareerin karto Puntland waxay leedahay hadii aynu dagaal bilownay ma doonayno in dagaalkii oo aan dhameystirin kooxdii oo aan laga sifayn buuraleyda aynu dagaalka sida ku soo gabagabayno waxaan doonaynaa bay Puntland leedahay in dagaalku socdo ilaa kan ugu dambeeya ee daacisha laga qabanayo dhulkaasi lagana sifaynayo dhulkuna uu noqonayo mid nabad ah oo daacish markaasi aysan ka jirin waxay Puntland ay markaasi wada wali dadaalo iyo sidoo kale dagaalo iyo sidoo kale istiraatiijiyado kale oo ay firxadka kula dagaalamayso inta ugu badan waa firxad jihada ay degan yihiin iyo goobta ay degan yihiin si dhibaan loo ogeyn waxay ku dhuumaalaysanayaan buuraha markaasi adag ee halkaasi ku yaala iyo sidoo kale dhulkaasi buuraleyda togoga godadka iyo sidoo kale goobaha dhuumaalaysi ee halkaasi ku yaala dawladdu iyo ciidamaduna waxay isku dayayaan in ay adeegsadaan siyaabo kala duwan oo ay firxadka ku soo afjaraan maalmihii ugu dambeysay waxa gacanta lagu qabtay xubno kala duwan oo daacish oo markaasi
ajaanib ay ku jiraan, gaar ahaana kuwa u dhashay Turkiga iyo dalal kale. waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay kuwa Soomaali oo Daacish ka tirsan. sidaan idiin sheegnayna maadaama inta ugu badan dhulkaasi laga sifeeyey kooxda Daacish, dhulkuna uu yahay dhul markaasi Daacish ka madax bannaan ama Daacish aysan ka jirin, waxa ay dowladdu ay markaasi dhowaan amartay in dadku ay dib ugu laabtaan qayb ka mid ah deegaanadii ay deganaayeen. taas oo keentay in kadib markii deegaanadaasi ay dib ugu laabtaan ay markaasi halkaasi ka sameeyaan nolol, dadkuna ay ka shaqeeyaan sidii kooxdaasi aysan mar dambe dib ugu soo laabateen deegaanadaasi. laakiin arrinta dhacday ayaa ah in Daacish oo inta badan Soomaali ku jirto, qayb badan ajaanib ay tahay, inta Soomaalida ay isku ekaysiiyeen dadkii deegaanka ku dhex milmeen, xoolal iska dhigeen, isla markaana ay shaqadii argaxisanimo halkaasi ka dhex wataan dadka dhexdooda. taasina ay keentay in qayb ka mid ah oo Soomaali ah ay dib ugu laabtaan deegaano iyagoo ka dagaalamayana ay dowladdu sheegtay. sida ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegayna deegaano horey Daacish looga qabsaday ayaa kuwa kale lagu arkay iyagoo dadka deegaanka kusoo dhex dhuumanaya. waana ta dowladdu doonaysa mar kale inay tallaabooyin qaado sida ay sheegtay, waxaana maalmahanba ay dowladdu waday dadaalo iyo dagaalo iyadoo aad moodid in markaasi howlgallada ay sii xoogaysanayaan dhowrkii beri ugu dambeeyey. qodobkaas halka haddaan uga nimaano, markaana waxaanu aadaynaa Jubbaland. dowladda federaalka iyo Jubbaland xiisadoodu meel adag bay maraysaa intiina la socota, iyadoona dhowaan lagu kala kacay wadahadalla dowladda federaalka iyo dhexmaray Jubbaland, gaar ahaan labada madaxweyne ee federaalka iyo maamulka Jubbaland ku dhexmaray Kismaayo isfaham waa lagu kala dareeray. madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya oo aaday arrimaha Jubbaland buu kala hadlay, waxaana wadahadalladii fashilmay ee madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha dowladda federaalka garwadeenka ahayd Kenya. waxaana madaxweynaha Soomaaliya markaan leeyahay waxaanu doonaynaa Itoobiya inay arrintaani ay markaasi gasho hawsheeda. saraakiil ka socota dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay Jubbaland ay markaasi ay ka hor istaagtay inay ka degaan garoonka Doolow, kuwaas oo markii dambe ka degay dhinaca Itoobiya isla Doolow, iyagoo oo kulamo la leh saraakiil ka socota Itoobiya, halkaas oo kulamo kala leh. dabcan saraakiishan dowladda federaalka ujeedka socdaalkooda lama sheegin, laakiin dadka qaybtooda waxay leeyihiin waxay ahaayeen saraakiil wada howlgal ka dhan ah Jubbaland, halkaasayna dabeen inay degaan. laakiin Jubbaland oo ka warheshay diyaaradii rasaas u wisay, waxaana diyaaradii ay markaasi dib ugu laabatay hawada iyadoo markii dambe ka degtay Doolow dhinaca Itoobiya, halkaasna saraakiil Itoobiyana kulamo kula leh. markii hore waxaa la sheegay in ay ujeedkoodu ahaa kulamadan iyo arrimahan iyo wadahadallada, laakiin Jubbaland arrintaa waa si weyn ayay u diiday. waarataan idin sheegay oo madaxweynaha Soomaaliya markuu tagay Itoobiya, ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira Jubbaland oo markaas ay dowladda federaalku aaminsan tahay haddii ay dagaal ku qaaday inay Itoobiya garab siinayso. waxaana Itoobiya markaan ay ku dadaalaysaa in ay gareen dabcan wada hadal madaxweynaha Soomaaliya sidoo dalbaday ay arrimahaas galwadanaydu ka noqoto. haddaba maxaa farqiga u dhexeeya Jubbaland marka la joogo Itoobiya iyo Kenya? labaduba waa saaxiib Axmed Madoobe, laakiin Itoobiya ciidamadeeda iyo siyaasadeeda ayaa saameyn ku leh gudaha Jubbaland, iyadoona xiliyadan markaasi ciidamadeedu ay si toos ah uga barbar dagaalamaan kuwa Jubbaland markay noqoto faragelinta Itoobiya, markay noqoto ilaahdee dowladda federaalka iyo markay ay Jubbaland isqabtaan. waxaana la ogeyn inay Itoobiya awood u yeelan karto inay Axmed Madoobe ka dhaadhiciso inuu la heshiiyo dowladda federaalka iyo in waxyaabaha qayb madaxweynaha Soomaaliya doonayo uu Axmed Madoobe aqbalo. waad mahadsantihiin. muuqaalkan like saar, channelkana subscribe saar. nabadgelyo.